anigoo ah senatarada Koonfur Galbeed oo dhawaan noo soo xiray kala fadhigii koowaad oo aqalka sare waxaan imaanay soo booqnay deegaan doorashadii oo naga soo doortay magaalada Baydhabo si aan ula kulmno madaxda ugu sareysa Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta kala duwan. waxaan kulankii koowaad la qaadanay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale waxaana kala hadalnay arrimaha siyaasadda, amniga, horumarka guud, arrimaha bulshada iyo arrimaha bani'aadanimada iyo abaaraha Koonfur Galbeed ka jira. isxog wareysigaas kadib waxaan isku afgaranay anigoo senatarada ah in deegaan doorashada kala duwan gobolada la aado, macluumaad laga aruuriyo si hadhow markaan noqono aqalka sare aan uga bixino warbixin